كم إذا أمير هذا أمة الصوماليات واسم كسر كذا بنتلان كأبتر سدا ديجان قبل كمدوك وأمير في مدي سهونتي الجالسي سنت هاي إلى كل الكشمال وأمير كسمتان هرمر وحقبض وحبرشو يجناس وعندنا runtii in isimada marka taariikhda dib u raacno ay ku yartahay arrimaha horumarka nabadgelyada laakiin waxa laga yaabaa in amiiradu badana ay nabadgelyada ay ooleeyaan amiirku waa amiir Soomaaliyeed waa amiir Maxamuud Yuusuf waa isim kamid ah isimada ku caan baxay horumarka bulshada waa isim runtii degan oo qurba joog inala ah dalka Ingiriiska ama UK muddo 26 sano ah isinku wuxuu ka soo shaqeeyay runtii hawlo fara badan oo ah hawlaha horumarka waxbarashada ganacsiga wuxuu ka qayb ahaa dadkii soo abaabulay xafladda tan quruxda badan aynu ku soo dhaweynayno Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise baan mahad u celinayaa waxaan kaloo mahad u celinayaa ka soo qaybgalayaasha waqtigoodii u horay inay ka soo qayb galaan xafladda tan iyo munaasabadda tan waxaan u malaynayaa waxa aad loogu xiiso qabay in la soo dhaweeyo wax badan baynu aragnay siyaasi la soo dhaweynaya in la soo dhaweeyo isim aad baa loogu xiiso qabay marka amiir waxaan ku leenahay soo dhawow Soomaaliya ku dhaantay meesha sidii uu sheegay ilaahayna waxaan ka baryaynaa hawshaad u timi iyo tii aad qaban doontidba in aad maaragtay ilaahay kuu fududeeyo innagana waxaan idinkula dardaarmayaa hawsha inoo kolley qorshe inoo la yimi amiirku qorshahaas sida aad xafladda uga soo qayb gasheen insha Allah inaad iyadana uga qayb gashaan soo dhawow mar kale annagu ka jaaliyad ahaan hadaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan badannahay runtii dalku sidii moodayaan ma ahan waxa la sheegay in 30,000 aan kor u dhaafnay Victoria maaragtay marka la eego jaaliyadaasi marka runtii wax qabadkeedu iyo horumarkeedu maalinba maalinta ka dambaysa way soo taraya gaar ahaan dhinaca businesska oo aan aad ugu wanaagsanahay oo dad badan oo annaga naga mid ah ay hawlahaasi hadda qabtaan dhinaca nabadgelyada markii loo eego wadamada kale Soomaalida ay ku nool yihiin arintaasna waa ku wanaagsanahay runtii oo wax wanaagsan ayaa runtii jaaliyada halkan Soomaalida degan aan runtii naloo sheegay xageena amniga inuu aad u wanaagsan yahay gaar ahaan dhalinyarada waxyaabo iska dhacdhaca way jiraan laakiin majority-ga dadkeenu waa wanaagsan yihiin mid siyaasadeed ma aha mid campaign ma aha laba ujeedaynu insha Allah ta'ala caawa xafladan ka leenahay mid inaga ina saaran tahay oo waa soo dhaweynta Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise amiir ku soo dhaw magaaladii Melbourne qodobka labaadna waxa weeye inaynu isaga dhageysano oo bal wixii warbixin ah oo laga yaabo inaynan warbaahinta ku arag inuu inala wadaago marka ujeedada madashu labada qodob ayay ku soo ururaysaa amiir magaalada ku soo dhawow hadaanu nahay qurba joogta Soomaaliyeed ee Australia waxa aanu isu aragnaa inaanu nahay dadka ugu cadcad qurba joogta Soomaaliyeed ee banaanka aaday qolyaha aad ka timid ee London waxay u badan tahay inaanu anagu ka horeyno qolada kaliya oo isleenahay waxoogaa hal gool ay idin dheer yihiin waa nimanka state-ka Minnesota fadhiya iyagana waxaan filayaa inaanu ka daba tagi doono marka amiir ku soo dhawow runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Australia guud ahaan gaar ahaan magaalada Melbourne meel sahlan ma aha dad badan oo siyaasiyiinana waa soo saareen oo xaqii wadanka jira marka jaaliyaddaas aad caawa marti u tahay mar labaad soo dhawow amiir idinka isin u diin anaga malaaqo noo yahay malaaqna waxa fadhi malaaqiga Xal Xaaji Muxtaar malaaq ama isin markii la yiraahdo saddex ay u qaybsamaan isim ala doortay isim ummadda dooratay isim shaydaan doortay waxa ay cad walaalkii amiirka inuu yahay isim ummadda dooratay ee bana doortay dadka halkan isku yimid ma aha dad ka soo jeeda beesha isimka kaliya ma aha
waa dad ka soo jeedo goboladoo dhan ama Soomaaliya oo dhan ka soo jeedo taas waxay ku cadeynaysaa inuu yahay ism Soomaaliyeed inuu yahay Soomaali oo dhan uma kala harin waa aad iyo aad xurmad u weyn Amiir Maxamuud soo dhawow waa dadkaagii waa dad ku jecel waa walaalaha waa Soomaali haddii Ilaahay idinka leeyahay annagu haddaanu nahay reer Melbourne Soomaali haddaanu nahay saasaan u midaysanahay wax fara badan oo wax kasta oo maartay mujtamaca guud ahaan oo dhan saasaan uga midaysanahay Amiir Maxamuud waan ku salaamay soo dhawow magaaladan Melbourne waan kugu soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlahaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga magaaladan aanu deganahay farxad bay noo tahay ka soo qaybgalkaaga iyo maanshadaada waa run dad badan baa noo yimid oo aqoon-yahano ah oo madax ah laakiin isimadu waa nagu yar yihiin inaad noo timaadana wax weyn bay noo tahay waana rajaynaynaa inaad duco fiican nooga tagto marka aad tegaysid waxaan kaloo soo dhaweynayaa amiirka Maxamuud Yuusuf Ciise waan ku soo dhaweynaa magaalada Melbourne aan uga mahadnaqaynaa safarka dheer oo noo soo galay aan ku tixgelinayno sidii hore uu sheegay muxuu ahaa Axmed Tuxow wuxuu yiri Australia waa meel dheer imaatinkeedu ma sahlana safar dheer baa la soo galaa intaasoo waxaan meenay wali waxay luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo jet-lag wali waa kugu jira ma filaya dalka diyaaradda marka adoo saas dhifkaas qaba iyo daalkaas qaba inaad maaragtay haddana xafladan noogu timaado oo aad warbixin siin doonto wadankii ku saabsan aad baan kaaga mahadnaqaynaa meelahan soo istaagi jiray hadal jeedin jiray inkastoo aan daahay waa ku cusbahay hadallada noocaan iyo xafladaha noocaan inaan ka hadlo laakiin waxaan doonayaa fursad wanaagsan weeye inaan ku darmo raggii iga horeeyay iyo dadkii iga horeeyeenba oo aan amiirka ku soo dhaweeyo xafladan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu noo yimaado sidii la sheegay waa qof isima oo markii ugu horeysay magaaladan noo yimaado oo na soo booqda oo na sharfa waxaan filayaa inaan noqon doono qofkii ugu hadal yaraa sababtoo ah Soomaalida waxaa la yiri hadalku waa jecelna laakiin wuxuu ku fiican yahay khayrul kalaami ma qalla wadal hadalkaas ka soo yarayno maadaama in la ficil loo bedelo ay ka fiican tahay Amiir soo dhawow magaalada Melbourne waxaan rajaynayaa inaan ka dhabayno hadalladii meeshan ka dhacay caaw waa midaysanaana haddaan iraahno irinta markii laga kala baxayo la kala tagi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meeli bahal lay deganay yeesada jiilkii hakigi iyo muqroonanay oo wayna gadeenahan hata calaamad meel kasta ka haysadan calankii jamhuuriyadda meelay teeganay sagaal calan halka garawaya tacliin faylame wal faylame islaamnimo hobleero giibsanaan yani dadkii meel kamidaysan lanka geesun gubaha way leeray halku talaway ism Maxamuud Yuusuf waxaan leeyahay markuu ugu horreysay ku soo dhawo magaaladan waa magaalo aad u fog laakiin magaalo Soomaali fara badan oo aad u diiran oo aqoon-yahano leh oo culimo leh oo ma taqaanaa ummad shaqaysata leh ganacsato leh cid walbana leh marka taas markuu ugu horreysay soo dhaweyntaas waxaan kugu soo dhaweynaynaa ma aha kaliya inta aad taqaanid iyo inta aad la gobolka tahay iyo inta aad isimku u tahay iyo inta ma taqaanaa ku taqaan waxaan kugu soo dhaweynaynaa Soomaalinimo Soomaalida joogto wadankan oo dhan ama New Zealand iyo Melbourne bay joogta marka waxa weeye marka xigta waxa weeye qofka isinka ah taariikh dheer oo Soomaaliyeed ayaa jirto loo noqday hadda intii 60kii ilaa iyo 70meedii iyo kasii dambeysay xilliyo waxaa la soo maray arrimihii dhaqanka hoose ee Soomaalidu taqaanay laga leexday oo loo leexday ama ma taqaanaa siyaasado ha noqoto shuuci ama ha noqoto siyaasado ma taqaanaa dimuqraadiyad iyo waxyaalo kale laakiin waxaad moodaa dagaaladii inay soo celisay dhaqankii aan naqaanay oo la fasiri karo Soomaaligu wuxuu yaqaanaa ceel hoggaan maamul isim beeldaajiye nabadoon iyo wax la mid ah bismillaah
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وآخرا وحمد الله سبحانه وتعالى إلهي كان سوكا كان نوضة إنه مسلمين إنه صومالية وهل قيسة إلهي كان سوكا كان محاضر نسكله بعد الله وحمد علينا أنت أبو الشيخ حفلة runtii intaana ummada isugu keentay oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Australia gudoomiye Farax iyo guddiga qabanqaabada oo rag kala duwan oo halka fadhiya iyo gabdho qaaliya dhammaan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr jazaa Allah karaameeyo ciisi sharaf Allah idisiyo inta ka bacdi waxaan ku salaamayaa dhammaan inta halkan fadhida oo ugu horeeyaan madaxda dhaqanka guddiga jaaliyadda labeenta halkan fadhido oo aqoon-yahan iyo siyaasiyiin gabdhaha qaaliga dhalinyaro meediyaha dhammaan waxaan ku salaamayaa salaatu salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ka bacdi waa idin mahadcelinayaa inta qof bini'aadan uu gaari karo mahadcelin aad baa mahadsantihiin intaa ka bacdi warkayga duubaad haysaan anwaarta halkan waxaan joogaa habeenkii saddexaad baan filayaa asal ahaan waxaan ka imid Soomaaliya bayskaygu waxa weeye waa Puntland gaar ahaan waa magaalada Gaalkacyo shaqadaydu laakiin kuma koobna dhulkaas oo dhan ilaa dowlad deegaanka laga gaaro Mordheer ilaa Jigjiga mujtamacu waa ay degaan dhulkaan ka shaqeeyo ka mid yahay ilaa Boosaaso ilaa Hawdka dhulkaas oo baan ka shaqeynaa hadba meeshii ama talo wanaagsan ay ka jirto ama meesha xogaa culays ka jiro inta barunta oo gurmanaa waan aadnaa ilaahayna waa noo sahlaa wax hadda aan u tagno maarta ficnaana waa gaaraa inta ka bacdi qurbi joog baa ilaahay inta dareemaysaa madla dareemayaa dalkan Ingiriiskan deganahay beeskaygu 97 baan halkaas soo degay waxaan la mid ah raggii soo qaxay saaxiibada halkan ka hadlayay baan la dareenahay nabadgelyo daro Soomaalidu ay kasbatay gacmaha ku kasbatay intii ay keentay oo soo saartay baan ka mid ahaa inta ka bacdi 12 ayaan ka tegay meesha la yiraahdo London waxaan hadda ku soo laabtay July bishii 7aad 15keedii 10 sano iyo 7 bilood meelahaas ka maqnaa intaana waxaan ku dhex jiray 7 maalmood aan tegay Nairobi iyo ma aqaan 2 toddobaad aan tegay Addis Ababa mooye inta kale waxaan ku dhex jiray dalka aniga shaqadaydu waa laba shaqo kaliya oo aan waqtiga taaleegan gelinayay ama in badan oo ka horeysa ka shaqeynayay mid waxa weeye xagga horumarka bini aadamka iyo mujtamaca inta aan gaari karo midna waxa weeye waa nabadeyn aniga shaqadan qabtaa labada shaqo waxaan ka gaari karana waan qabanaa ilaahay baa ku mahadsan wax badan oo arrimaha horumarka ah haday tahay in badan hadda halkan laga sheekeeyay iskuulaad ilaa levelka ugu hooseeya hoose dhexe sare iskuulaad farsamada gacanta ah college gabdhaha gaar u ah aqoonta mid gaar u ah arrimahaas oo baan ka fulinay deegaan hadda ku yaala mudug iyo hareeraheeda boqolaal runtii maartay dhalinyaraha baa fursad u heshay qaarkood halkan fadhiyaan iyagoo master degree wata oo aan ka soo kaxaynay baadiyaha joogeen hadda halkan markhaati bay noqon karaan way fadhiyaan إسحاق مي وأقوياء إيكونوميستا وي وماستر ديجري وي رجل كلاس 1 الميل كسو ككيني وماشي حق سو برتم كمدي مسارada inta leegan hadda waxa madax ka ah nin master degree haysta oo ku takhasusay physics iyo mathematics waa maarey guud mashruuca way oo dadkii aan ku keenay wax qaybta qabiilka miyiga ka keenay arrimahaas aan ka shaqeynay xagga horumarka ilaa dowlad deegaanka
runtii reerka beyska waa arrimahan horumarka ilaa xuduudda marka laga tago jamhuuriyadda dhinaca Itoobiya la aado ilaa Wardheer magaalooyin ku dhow ilaa ceelkii tobnaad bay ka qodeen wariig ayay ka qodeen ceel bal markii la qodo dowladda loo yeeraa mujtamaca halka degan baa loo yeeraa waxa la yiraahdaa ceelkaas mujtamaca iskale kulligood naga dhaxeeya ilaa shan kaliya sidaas ay yiraahdaan subhanahu wa ta'ala Allah ina fi meel joognaba aad ma santiin jazakumullahu khayr jazaa akhir bukhura